السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال عشر كان وحن كبران دونا هدو الله يلاهدو سيدا الله أبو جلوسري جو وحو فائدة اللي هي وميل لغو قرو قيحيتان كأريادة مهم كأه صوبان لجد أما قيحيتان كأفكارتا أردادا كورسادا كغب جليسا كعصب وميل سيدو كالي أردادا قديدو marka laga hadlayo glossary-ga moodle-ka ardada ku dhaydu waxay awood u leeyihiin inay wax ku daraan qeexitaanka erayada ay garanayaan waxa weey afkaaraha ee cusub ay garanayaan sida loo qeexo waa ka qayb qaadanayaan oo waxbay ku darayaan marka waxaad moodaa glossary-ga muxuu ahaa hadii alla ku roon yahay moodle-ku waa ka duwan yahay glossary-yada kale maxaa yeelay ardada ku dhaydu ama ka qaybgalayaasha koorsadu waxay ka qayb qaadanayaan intriga waxa weeye waxyaalaha la gelinayo glossary-ga annagu hadda waxaan sameysanaynaa meel erayada muhiimka ah ee waxa weeye aan ku kaydino maxaa yeelay koorsada Soomaali baan ku qornay waxa weeye Englishna nagama maqno erayada muhiimka ah ee aan Soomaaliyeynay meeshii aan ka keenay ayaan waxaan u baahanahay qeexitaan inaan ka sameeyno si dadka koorsadan dhiganaya aysan ugu wareerin waxaan rajeynayaa idinkuna inaad ka qayb qaadan doontaan maadaama glossary-ga qof walba wax ku dari karo si hawsha aan u qabto editing-ka ayaan shidanayaa marka hore markaan editing-ka shito waxaan helayaa haduu alla ku roon yahay meeshaas ayaan rabaa inaan ku darsado glossary-ga glossary-gu wuxuu ka mid yahay activities-ka waa dooranayaa waa ka automatic la halkaas uu yaalaa waxaan leeyahay add glossary baan leeyahay wuxuu igeenayaa space iyo meel aan ku qoro magaca glossary-ga glossary-gan magaca loo bixinayo waxay tahay waa erayada muhiimka ah ayaan leeyahay halkan sidoo kale waxaan ku qoranayaa instruction yar oo aan rabo dadka inaan ku gubaabgeliyo fadlan ka daalaco halkan erayada muhiimka ah adiguna ku dar waa erayada koorsada quseeya muhiimka ah sidoo kale ma secondary ba waa secondary course tape glossary tape kan meesha ku qoran waa secondary ayuu automatically nooga dhigay description kaas waa dooranay intriga halkan bal fiiri approved by default waa class isaga iska daa waa yes haye always allow editing ogolow yes waa ogolahay editing duplicate entries allowed maya taa macnaheedu waxa weeye laba participant isku wax ma gelin karaan maya allow comments on entry macnaha dadku comment waxay keenaan cali baa tusaale ahaan wuxuu ku soo daray eray muhiim ah ama waxyaalo uu qeexayo comment ma laga bixin karaa iyadana maya taasi waxay keenaysaa discussion fara badan iyo isqabqabsi and automatically link glossary entries waxyaalaha la geliyo oo erayada cusub iyo afkaarta cusub kuwaasoo ku jira koorsada link ma loo abuuri karaa waa loo abuuri karaa taa macnaheedu waxa weeye hadii aan meesha geliyo eray koorsada ku jira highlight buu muujinayaa oo linkiga halka ka abuurmaya hadaan ku dhufto eraygaas wuxuu tagayaa meesha koorsada uu uga jiro ama buugu ku jira ayuu tagayaa appearance-ga waxbaan ka dooran karnaa appearance-ga waxaan bedeli karnaa entries shown per page waa bedeli karnaa waxaan ka dhigan karnaa waxaan doonno kan waxa weeye default display format-ka waxa weeye waa simple dictionary style ku fiican tahay intaas marka aan ka qanco ayaan waxaan leeyahay save and display wuxuu igeenayaa walaal glossary-ga uu ii abuuray laakiin ogaada glossary-gan waa faro fadlan ka daalaco halkan erayada muhiimka ah no entries found in this section ku dar hadaba bal weeraha kamida weeraha muhiimka aan ku darno haduu alla yiraahdo weedaan sidan ayay u dhacaysaa waxaan leeyahay anfac anfac muxuu yahay hadaba waa su'aal definition keeda ayaan qorayaa anfac definition kiisu waxa weeye weedaan waxaa laga keenay kelmadda ingiriiska ah ee sidaan u qoran waa resources
ama resource. anfac halkaasi ka timi. anfac kelmadda ah definitionkeeda waa sidaa. anfac walaalayaal halkan haddaan doono attachment file baan soo gelin karaa. hadda laakiin waxaan leeyahay autolinki waa lii ogol yahay autolinki, laakiin hadda waxba hawshaas ma gelayo. waxaan leeyahay save changes. walaalayaal waxaan ku guuleystay markii ugu horeysay glossary-geena inaan geliyo kelmad cusub. anfac kelmadan tacriifkeedu waa sidaa. qof walbo glossary-ga soo gala oo kelmadda anfac kusoo arka koorsada qeybaheeda kala duwan wuxuu ogaanayaa meesha laga keenay anfac iyo anfac waxa loola jeedo. walaalayaal adiga participant-ga ama adiga ka qaybgalaha ah waxaad awood u leedahay inaad waxa weeye kelmad cusub oo koorsada ku jirta oo tacriifkeeda aad rabto dadka inaad la wadaagto inaad halkan ku darto. laakiin marna yaysan noqon waxyaalo kale in lagu daro. halkan waxaa la keenaa ereyada muhiimka in lagu kaydiyo, waxyaalaha muhiimka ay tahay in la daalacdo oo koorsada quseeya, ama afkaarta cusub in lagu daro. tusaale ahaan bal aan ku darno add. waxaan sheegaynaa moodle-ku muxuu yahay. kelmadda moodle fasiraadeeda ayaan meeshan ku qoraynaa. moodle weedhaan waxaa laga soo gaabiyey baseta waa modular object oriented dynamic learning environment. kelmadda halkaas laga keenay. intaas ayaa loo soo gaabiyey. waa word cusub wey. moodle-ku waa modular object oriented dynamic learning environment. intaasaan qoray. conceptigu waa moodle, definitionkiisana waa qoray. kasoo qaad anigu course participant baan ahay. moodle-ka ayaan barta. waxaan rabaa dadka inaan la wadaago. waa fiiriye kuma jira meesha, waa ku daraya. wax mamnuucaya ma jiro. way bannaan tahay, waa la ogol yahay. laakiin waxaa asala waxa aad gelinayso ee koorsada glossary-geeda inuu noqdo wax dadku ay ka faa'iideysan karaan, wax loo baahan yahay, wax daruuri ah. looma baahna inaad meesha keento ereyo aan loo baahnayn ama wax siyaasad ah ama wax markaas mawduucan aan qusayn inaad keento looma baahna. mudanayaal iyo marwooyin waxaa laidinkaga baahan yahay inaad ka qayb qaadatid waxa weeye glossary-ga erayada iyo afkaarta cusub ee lagu keedinayo. wax walbo cusub ay dadku ay ka faa'iideysan karaan waxa weeye glossary-ga waa la keeni karaa, waana ay bannaan tahay. sidoo kale halkan autolinki baa jira wax la yiraahdo. halkan attachment baan keeni karaa. qadka ayaa xoogaa culus marka waxa weeye page-ki ima soo dhameystirmin weli. halkan attachment baa iman karaa. file baan halkan soo dejin karaa. file aan isleeyahay dadku ha ka faa'iideystaan, ama presentation aan isleeyahay dadku ha ka faa'iideystaan oo cid walba ay la soo degi karto ayaan halkan gelin karaa. asxaabay iga raalli ahaada qadka ayaa aada iigu culus. marka waa ka cudur daaranaya arrintaas. xoogay dhilaygan yar ee igu jira. waxaan ku guuleystay inaan interigii labaad qoro. inaan qoro. markuu ii dhamaystirmo oo website-ku uu ka baxo, culeyska ka baxo, ayaan waxaan leeyahay inta hoos tago save changes. si toosa wuxuu ii geenayaa liskii glossary-ga ahaa. waxaan arki doonaa hadduu alla yiraahdo ereygii anfac waxaa hoos yaala kelmadii moodle-ka ahayd oo iyaduna definitionkeedii wadata.
taa macnaheedu waxa weeye dadka participantska ah kelmadda hore anfac waa e halkaasay taallaa iyadu waa alphabetical order weeye kelmadda anfac waa e anfac halkaasay taallaa kanna waa m wuxuu yaallaa halkaas waa moodle halkaasuu yaallaa qofka ka qaybgalaha ay soo galaya kelmadahan ayuu ku dhudhufan karaa si uu u raadiyo markaas word uu doonaya macnaheeda asxaabay waxaan rajeynayaa inaad aada uga faa'iidaysateen qaabka aan u abuurnay glossaryga waa meel interaction lagu sameeyo oo waxa weeye dadka ka qaybgalayaasha ama ardada ah ay ka qayb qaataan qorista erayaasha muhiimka ah ama qeexitaanka waxa weeye afkaarta cusub ee markaas ku cusub dadka koorsada ka qaybgalaya koorsadeennan waxaan yeelan doonaa meel lagu kaydiyo erayada muhiimka ah meeshaasoo aan ku qori doono dhammaan erayada soomaaliga ah ee aan koorsada ku qaadanay meesha aan ka keennay ama originally English ahaan meesha ay ka yimaadeen intaan casharkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh